aan kuu qabo wuxuu isku beddelay murugo. Farxaddii ay sii jirtay waxay isku beddeshay murugo. Qalbiga mar walba waxaa iigu dhidsi jirtay jacayl aan jirin. Laakiin dhabtii maanta ayaad i garaawsiisay. Qiimaha aniga aan leeyahay hore ayaan u ogaay in maalinkan ay imaan doonto oo ahayd maalinkan agtaada ka soo dhammaaday. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas oo aad u xanuun badan. Waxaa noo soo gudbiyey walaalkeen Jamaal oo ah saaxiibada ku xiran barteena YouTube-ka ee Socdaal 24 sidoo kale aaladdeena Facebook iyo TikTok. Qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Jamaal wuxuu ka mid ahaa wiilasha dhalinyarada ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay isla magaalada Muqdisho. Jamaal waxa uu dhiganayay mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho. Sidoo kale Jamaal wuxuu ahaa xaafidul Qur'aan oo 114 dusha ayuu ka yaqaanay. Sidoo kale dhanka waxbarashada markii la lahanay Jamaal wuxuu ahaa arday aad u dadaal badan. Hadduusan kaalinta koowaad gelin waxa uu geli jiray kaalinta labaad ama saddexaad. Sidoo kale wuxuu ahaa arday aan wareegin ee inta badan guriga joogo. Sidoo kale Jamaal wuxuu ahaa arday mar walba jecel inuu xaafadda iska joogo. Sidaas ay tahay Jamaal iskuulka markuu joogo ma ahayn ardayda inta badan dhibaatooyinka sameeyo ama laga soo dacwoodo. Mar walbana iskuulka ayuu joogi jiray isaga oo xaaladaha iskuulka markuu joogana ay ahayd maruu cashirkiisa ku ceshto iyo maruu wardigiisa wato. Sidaas ay tahay xaaladiisu aad ayay u adkeed. Inkastoo hooyadiis nolol adag ay ku soo korisay laakiin hooyadiis markii dambe waxay noqotay hooyo aad u fiican oo suuqa ayaa u kala kacay. Jamaal aabihiis sidoo kale wuxuu ahaa ganacsade aad u sareeyo oo isla magaalada Muqdisho ka shaqaysanayay. qof walba oo bilaadan wuxuu leeyahay dareen. qof walba oo bilaadan wuxuu leeyahay jacayl. qof walba oo bilaadan wuxuu leeyahay damac. sidaas ay tahay Jamaal waxa uu jeclaaday mid ka mid ah gabdhihii iskuulka la dhiganayay. inta badan waxay ku wada socdeen walaaltinimo. kaftanka dhoola cadeynta waxay ahayd mid labadooda aad iskugu riyaaqaan. gabadha Jamaal soo jiidatay ee qalbigiisa ka tirta gabdhahoo idil magaceeda waxaa la dhihi jiray Farxiyo Jamaal waxay ahaayeen laba qof oo walaalo ah. haddii nafta la isku huri karana labadooda way isku huri lahaayeen. Jamaal sidaas oo ay tahay mar walba wuxuu jeclaay accesska iyo waxyaabaha loo diro inuu Farxiyo kala shaqeeyo. Jamaal iyo Farxiyo sidaas ayay mar walba iskala shaqeyn jireen wax walba. laakiin hore ayaa waxaa loo dhahay noloshu haddiisan lahayn saddexeeye dhadhan noloshu ma lahan. waana shaah bilaa sokor la'aan ah. mar walbana oo laba qof isfahansan yihiin ma waayaan qof xasid ah ama qof xaasidkooda. Jamaal iyo Farxiyo waxay heleen xaasidiin fara badan. inta badan ayagoo walaaltinimo ku wada socdo ayaa iskuulka oo idil waxaa loo wada geliyey inay yihiin laba qof oo isjecel. Farxiyo waxaa soo food saaray caqabado fara badan. Jamaal sidoo kale macallimiintu wuxuu kala kulmay weji cusub iyo isbeddel maadaama lagu wada sheekaystay. sidaas oo ay tahay labadooda waxay ahaayeen laba qof oo isku kalsoon oo mar walba nafta isku huri jiray. laakiin bale waxay ka dhacday inta badanna la sheegaa in jacaylku yahay saddex. qofna dhab ayuu ka yahay, qofna dhalanteed, qofna danaysi. Jamaal wuxuu ahaa boqorka jacaylka. haddii cilmi boodhiri aragtana sidaas oo kale ayuu Jamaal ahaa. laakiin Jamaal gabadha uu jeclaaday mar walba kama aysan ahayn jacayl dhab ah laakiin waxay ka ahayd wiilkan iska jeclaaw oo ku dangaar. hadallada macaan ee quruxda badan ereyada suugaaneed ee mar walba loo soo diri jiray dhambaalada caashiqa ee xaadda kicinaya ee mar walba qalbiga Jamaal la maqashiinayo. markuu maqlane wuxuu ahaa qof ilinta cesho waaye oo mar walba wuxuu isjireen sii jiray in gabadhan ay tahay
gabadhii ugu qiimaha badneed ee dunida intuu joogay uu jeclaaday. Sidaasoo tahay, maalin maalmaha ka mid ah ayuu Jamaal wuxuu go'aansaday in Farxiyo uu dhaho ereygii ugu qiimaha badnaay, kaasoo ahaa in muddaana uu ka fakarayay siduu ugu sheegi lahaa. Markii koowaad ee afkiisa uu ka soo baxay aad ayuu u cabsaday, xitaa qoraal ahaan ayuu isku dayay inuu ugu sheego, haddana macquul ayay u noqon weysay. Noloshu aad ayay u adag tahay, adiga oo qof dhab u jecel haddana aad u sheegi karin jacaylka aad u qabtid. Inta badan Soomaalida hadda jirtane waan ku jeclahay ereyga si caadi ah oo kaftan ayay la tahay. Jamaal waxaa ku dhacday midii ugu xoogganeed. Markii dambe ayuuna go'aansaday in gabadha uu jecel yahay ee Farxiyo uu la wadaago jacaylka uu qabo. Markaas ayuu dhahay, Farxiyo si deggan oo qurux badan ii dhegeyso. Aniga waxaa tahay walaashayda ugu qiimaha badan ee dunidan, laakiin caawa ka bilaabato waxaan rabaa inaan kuu sheego wax nafsadeeda ka weyn oo anigaan celi waaye. Markaas ayay dhahday Farxiyo, maxaa waaye? Jamaal markaas ayuu dhahay, Abaayo, qof walba oo dunidan joogo wuxuu leeyahay lamaane ama qof uu jecel yahay. Sidaa darteed anigana adiga ayaa adduunka oo idil kuu jeclaaday. Miyaan qalad leeyahay? Nafteeda ayaana kaa xakameyn waayey. Waxaan rabaa jacaylkaan kuu qabo si diiran, si deggan, si farxad leh inay iga aqbasho. Farxiyo waxay dhahday, aad ayuu u adag yahay jacaylka, laakiin aniga walaalkay ayaa tahay, mana kaa diidi karo jacaylka ii soo bandhigatay. Halkaas ayayna ka bilaabatay farxaddii koowaad ee jacaylkooda. Ayaga oo isku faraxsan ayay mar walba jacaylkooda wadi jireen. Farxiyo iyo Jamaal sidii hore way iskaga soo dhawaadeen. Xishood fara badan ayaa imaaday markii iskuulka la joogo, taasi oo ahayd in aan indhaha la sii karin, sidoo kalena aad loo kala xishoodo. Halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad jacaylkii u dhaxeeyay Farxiyo iyo Jamaal. La soco qaybta labaad oo aad u xiiso badan.